ayadoo marba marka dambeysa ay magaalada Muqdisho ku talaabsanayso horumar kala duwan oo la xiriira dhinaca ganacsiga iyo dib u dhiska dalka. Muqdisho waxay aad ugu soo kabanaysaa burburka iyo dhibaatooyin kala duwan ee hore u soo gaaray meel walba iyo degmo walba oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Markii aad marto waxa indhahaagu qabanayaan dib u dhiska baaxadda weyn ee ka socda gudaha caasimadda iyo mashaariicda horumarineed ee sida xooliga ugu socda magaalada, waxaana taa barbar socda isbeddelka weyn ee laga gaaray dhinaca bilicda iyo nadaafadda ee magaalada Muqdisho. haddaba waxaan warbixinteena maanta si gaar ah u dul istaagi doonaa isbeddelka dhinaca bilicda iyo nadaafadda iyo kaalinta ay ka qaataan dhismaha iyo hirgelinta wadooyinka interlooga. dal walba waxaa dhiso dadkiisa. caasimadda Muqdisho waxa ay hadda ku talaabsanaysaa horumar wanaagsan oo dhinacyo badan leh, haba ugu horeyso dhinaca bilicda iyo nadaafadda. waa kuma yaa suurtageliyey sideese ku noqotay caasimadda Muqdisho mid nadaafadeeda iyo bilicdeeda la isku halleyn karo. kaalin ceenka ayay ku leeyihiin hirgelinta wadooyinka interlooga dhinaca bilicda iyo nadaafadda. haddaba si aan arrimahaas wax badan ugu ogaano, waxaan u kuurgalnay mid ka mid ah shirkadaha suurtageliya sameynta bulkeetiga ama dhagaxa loo yaqaano interlooga. waa shirkadda Muhiim Som. waxa ay ka mid tahay shirkadaha had iyo jeer ku howlan sameynta iyo soo saarista bulkeetiga interlooga, waxaana halkaasi kula kulmay kaaba shaqaalaha shirkadaasi. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku baaqayaa inay fursadan ka faa'iideystaan gaar ahaan interlooga. bilicdiisu waa fiican tahay oo magaalada ku aragtay. aniga muddo 7 sano ka shaqeeyay 100% ma sha Allah. haddana geerida maahane wax kale ugu daay ma jiraan. waa gartay maalintii meeqa xabaa soo saartaa? maalintii waxaan soo saaraa 250 mitir. mitirkina waa 20 biyo. ugu horeyn Cali Cabdullaahi Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Muhiim Som ayaa iga warmay shaqaalaha ka howlgala shirkadda iyo agabka ay ku shaqeyso, isagoo fariin adag u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. wadanka ka jirta in la dhaho shaqo la'aan waa u jeedaa xoogeena xamaalahoona hal hayska warshadeena waxay tahay balanteen waa shaqo soo dhawaada. waa tahay Cali, sida horteeda ka muuqato qalabkan xaggee ka keenteen yaa idin ka gacan siiyey, sidee macnaha idin ku suurta gashay in qalabkan aad warshada ka hirgelisaan? wallaahi horta qalabkan meesha aad u jeedaan oo dhan waa wax soo saarka wadanka dalka ayaa lagu farsameeyey. waxa warshadan maanta yaalo mashiinada aan u jeedin waxa sameeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaana ka shaqeeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed. kaliya waxaan dibadda ka keensanay waa caagaga istaambooyinka lagu dhigo interlooga iyo shamiindada. inta kale waa wax soo saarka dalka iyo xoogeena. cid kale waxaad ka barada baahi kaama gooyso, balanteen waa shaqo. Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta isna shirkadda Muhiim Som, waxaana si kooban iga warbixiyay sababaha ku kalifay hirgelinta shirkadda Som iyo halka ay eegsanayaan mustaqbalka. wallaahi dhawaana asaasnay fikirkaasna oo nagu dhashay ilaanu noo fuudeeyay, waxayna naqatay meel wax ku ool ah ee dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka irsaaqaan, dad badan ay ku nool yihiin. waxaa iiga muhiimsanba dadka dabka shidanayo oo meesha ku nool wax walba farxad igala weyn. waa niman dhalinyaro shaqo la'aan oo miro jabsanay taariib iyo waxba u socdeen. alxamdulillah maanta ayna rabin inay taariibaan inay la joogaan la shaqeysayaan wadankooda nabadda ay qurxiyayaan ay bilicda wadanka soo saaraan. aad ugu faraxsana horta intaasaa muhiimad aan la soo koobin karin iyaaba. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya shirka cadaaladda ayaa soo hadal qaaday isbeddelka iyo horumarka ka jira caasimadda Muqdisho, isagoo kaga digay dadka suurad xumeynaya muuqaalka iyo horumarka dhabta ee ka jira caasimadda. siyaasiyiinta waxaan leeyahay socda quruxda magaalada, amniga magaalada, nolosha fiican, wanaagga soo arka, idin ku soo arka. xasan yuusuf cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.